وقلب كدايا ووطني وقبل كرايا ووطني وقابر يا ووطني وقلب كدايا ووطني وقابر يا ووطني وقلب كدايا ووطني وقبل كرايا ووطني عقلي وعليك كرامتي وكر علمي لو وقتي ولصدى ووطني ووطني اسمي وطني ووطني اسمي وطني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هلكم عن السلام يا دمان مدرس سومالي لأن كستي جوجان بك وحن كلون سلام يا مدحونا مستقبلك عبد الرحمن عرو وحن كلون سلام يا دمان حرمت اللحية أيان سلام يا وحن سلام يا قلب جوجتا وحن سلام يا جودي دفنينتا dhammaan waan salaamaya waxaan dilayaa hambaliyo bogaadin baan halkan idiga soo dirayaa maadaama oo maalinkan maanta ah oo taariikh tahay 8 bisha 8 2021 bilowdeen arrimo aanu u hanqal taagaynay in xisbigu u sameeyo shaandhayn qiimo leh iyada oo lagu hortegayo godoloolaha iyo xisbiga hoos loo jiidayo waxtarkiisa iyo tamartiisa iyo qiimaha uu xisbigu leeyahay siiba hoggaanka xisbiga ee maanta aynu u rabno inuu noqdo madaxweynaha mustaqbalka cabdiraxmaan oo mar walba aanu diyaar u nahay inaanu ka ilaalino dabandaabyada lagu wado xisbiga maanta inoo soo baxay horena u jiray ilaa maalintii lagu dhawaaqay inuu ka mid noqdo 3 xisbi ee sharcigu dhigayo inay waddanka ugu tartamaan dowladnimada ay gacanta ugu dhigi lahaayeen ilaa maalinkaa maanta ah gaadh aanu ka haynay aniguna aan ka tirsanahay xisbiga waddani madaxda waddanka Sweden gaar ahaan qurbo joogta dadka ugu indhaha dheer leh waxa aan halkan ka cadaynayaa labada xubnood ee maalinkan maanta ah la casilay ku wacad furay beenta kala wacad furaya beenta ee imika aan hadalkiisa dhageystay sida cabdilaahi axmed maxamed oo ku magac dheer kolay dahab ayuu sheegay laakiin aan malaynayo inuu daambu ku magac dheer yahay waxaan halkan ka cadaynayaa wuxuu cadeeyay oo uu sheegay uu ku hadlay isagoo u hadlay bulshada aan cadaynayaa xisbigu inuu ka kici waayay hoggaanka cabdiraxmaan ciro waxaan halkan ka cadaynayaa cabdiraxmaan ciro inuu yahay haliyey hoggaamin kara bulshada somaliland haddana cadeeyey oo inoo cadeeyey inuu yahay hoggaan wada tareenka ugu quwadda weyn ee adduunyanaha laga isticmaalo tareemada badda hoos mara iyo tareemada dheereeya uu saaray dhammaan ummadii somaliland isaguna uu yahay garwadeen isagoo ka mas-uula ummadda somaliland suu badbaadin lahay maasha allah ilaahayna ha garab galo guul baanu rajaynaynaa aniga oo cadaynaya oo ku cadaynaya muddo imika 2 sanadooda ku dhow inuu maxamed cabdilaahi axmed maxamed iyo ibraahim ninka buubaa ku magac dheer inay labadaasba ay ku xadgudbeen sharcigii xisbiga siyaabo laga wareerayna ay muddo 2 sano ah imika hadaladooda sidai u dhacayay dee si socayda ummadii ku noqotay yaabanayna dee sidii loo casi lahaa in farowgeed la qabtay beer hore aanu anagu maskaxiyan markaanu xisaabtanay la rabay in dee xisbiga laga saaro laakiin maanta lagu guulaystayna sii wanaag waxaan rajaynayaa qaar kaloo badan oo aan u malaynayo anigu rajaynayo inay la mid yihiin labadaa nin
in la shaandheeyo iyaga naftirkooda oo mid iyo lababa ah iyo saddexba xusbigu qofka jiidaya ee xadhigga ka jiidaya uma baahna xusbigu wuxuu u baahan yahay qof daacada alla ka cabsanaya laba aflaynaynin hadalka uu ku hadlayay calooshiisa isku mid tahay ayuu xusbigu u baahan yahay iyo badbaadada qarankuba waxa weeye maanta waynu ognahay in xusbigani uu guulaystay in loo sheegayaana ma jirto daraf ilaa ka daraf loo codeeyey 100% ay haystaan guushii in laga baryayaana ma jirto madaxweynahan uu yidhi madaxweynaha guusha helayna waxaan anigu u malaynaya in baa yidhi baadi war hebel baa halkaa ka hadlayay kasii hubeen hadduu hadlayay yaa waanu ishayni markaa hadalkan anigu inankani dhigayo cabdilaahi waxaan aaminsanahay hadal dee uu amay dhegayso amahay dhegaysantii ninkii burco joogay oo kale inuu wado ilaacaddaasaa u daaran ilaacaddaana cidi dhegaysan mayso ummaddu inaadina way ilbaxday horaa loo soconayaa cid loo joojinayaa ma jirto ciddii xusbiga waa laga qabanayaa cidda dabandabanaysa isba waa laga qabanaya waxaan halkan ka caddaynaya anigoo ah Murwayed Cabdi Faarax ahna xubnaha ugu aktifsan waddankan Iswiidhan mar walbana la kulanta madaxda nooga imanaysa Somaliland iyo qaaradaha Yurub iyo Ameerika iyo meel walba inaan la kulmay 2008 markii 2007 doorashada ay dhacday aynu ku guulaysan weynay inaan la kulmay 2008 annaga oo ay noo yimaadeen Cabdiraxmaan Ciro iyo Faadma Siciid annaga oo su'aalo la weydiinayay su'aalihii ugu darnaa ee Faadma Siciid ayaan ugu weydiiyay shakhsi ahaan Murwayed Cabdi waxaa ka mid ahaa number 1 xusbiga waa lagu tirinayaa adaa lagu tirinaya dhicidiisii idinkaana ka mas'uula iyo inta ku hareeraysan baan idhi eed number 1 ka tahay Cabdiraxmaan Ciro eed kuma laha waayo Cabdiraxmaan Ciro dee loogama baahna arrimahan oo kale arrimahan Cabdiraxmaan Ciro weyn baa looga baahan yahay tan ka weyn waanu idinla yimaadaa mar walbana waa idinku dhiirigeliyaa waanu idin soo bandhigaa soo annagaba noogu soo bandhigo idinkan idinku soo bandhigaa waxa halka anigu aan ku caddaynaya haddaan Murwayed ahay Faadma Siciida uu soo qabsaday iyo in allaale inta kale uu soo qabsaday anigu Faadma Siciid waan la kulmay waxaan u soo qaadanayaa intaa walaashay waan la kulmay waraysi dhow jeer baan kulanay waraysi badan baan intaan dee su'aalo badan baan weydiinaa oo la weydiiyey waxaan caddaynayaa markii ay aragtay in lagu fadalacad yahay lana arkay dee tooshku uu saaran yahay in ay halkaa iska casisho hadday is casishayna dee waxa ay u habboonay inay iska joogto oo ay siyaasad ka baxdo maadaama xisbiga ugu qiimaha badnaa ay intii waa iska casisay iskamaani casina markay aragtay in iyada lagu maqan yahay oo loo soo socdo ayay is casishay adigana walaalo maantay noqotay maalintii ay mindidu kugu dhacday dee iska dulqaado oo adaa halkaa is dhigay laxawlna halka isdhigtaa lagu qaraa waxa weeye inaad hadashid oo anigu de afxun kuma odhanayo walaalo kumina afagaadaynayo laakiin hadal aan loo jeedoon cid kaa dhegaysanin ilaacad inaad iska daaratid waa laga qurux badan yahay dalku wuxuu inooga baahan yahay inaynu ana maxaynu qabsanay maxaase qabyaa kulmiye in loo xayeysiiyo waddankan uma baahna dadkana uma baahna kulmiye wuxuu yahay horena waynu ognay imakana waynu ognaanay waxaanu taaganahay kulmiyow waddanka xooggeeda iyo quwaddeeda waa laga haystaaye ka sooda kursiga inta doorashada ay dhacaysana si wacan oo alla ka cabsiya sida ilaahay horta dhowta aad la hortagtid wax wanaagsan alla ka cabsiga ku dheereeya waxaan halkan rabaa inaan qodob yar oo kale aan u soo jeediyo qof kasta oo xil laga qaado anigana ha ku ahaatay biliis waxaan kaa cabsanayaa afkaaga inaad haysatid waayo xilka waxa lagaga qaaday ayaad horta qabtaa xusbiganina dee dadka ma dabandaabiyo dadka inuu taagureeyo u dhigtay waa wuxuu ku yidhi waddani ayuu ku yidhi waa waddani markaa waddaninimo haddii lagaa waayo xilka waa lagaa qaadaya haddii dabandaabiyo iyo dhibaato lagu arka xilka waa lagaa qaadaya haddii aflagaada iyo xilka sharciga inaad ku gudubtid oo xusbiga u qoran waa lagaa qaadaya markaa looma baahna inaad hadal aan loo baahnayn oo munaasaba ummadda aad la hortimaadid ilaahay ka cabso afkaaga hayso deeto og waxa weeye waxaad tiri waxaan furayaa xusbiga kulmiye yaa kolay marka dee kursiga la koro waddani koro insha allah bilahi kariim xusbiga kulmiye haddii aad adigu udub markuu sidii u dhaco udub oo kale markuu u dhaco mustaqbalka dee xusbiyada marka la furo haddii awoodii quwada aad leedahay xusbi waad furan kartaa laakiin sidan oo kale xusbi laguma furto adoo ummadii aflagaadaynaya adoo xusbigii hogaankii aflagaadaynaya adoo xusbigii aflagaadayn number 1 adigaana anigu
aaneynaya iyo intii kula midka ahayd inay ka kow ahayd xusbigu inuu dhaco doorkii hore haddana waxaan xusbiga leeyahay oo aan kula dardaarmayaa fulinta madaxda golaha dhexe xusbiga oo dhan dhammaan taageerayaasha inaan mid ka wada noqono cid kasta oo dabandaabeynaysa oo doomartaynaysa oo aan ixtiraam iyo risbakti xusbiga sharciga u haynin in xilka laga qaado anigana allaha ka dhigay in xilka laga qaado cidda daacadda ah ee ilaahay ka cabsanaysa ee ummadda u hiilinaysa ee xusbiga u hiilinaysa ee cabdiraxmaan degene ama cabdiraxmaan haliyey ama cabdiraxmaan siyaasi diblomaasiyeysan oo diin ku xeeraysan wado waa in garbiga gashaan lagu siiyo waxa weeye kulmiye iyo somaliland way tartamayaan somaliland oo dhan waxay leedahay isbeddel baan rabnaa adigoo maanta lagu casilayna waxbaan dadka ka iibinaya cidkaa yeelaysa iyo tii kale lagula casilay toona marka ixtiraam iyo respect waddanku inooga baahayay madax baynu wada nahanay siyaasaddu way kaa yara simbirraxan kartaa laakiin waxbaa lala kala hadhaa markaa biliis waxaan kaa codsanayaa oon diga wada codsanaya in allaala intii lagu soo socdo iyo intii la casilay iyo intii hore loo casilayba yaa waxba male siyaasadda halkaa idin dhigtay siyaasadda khaldanina meel xun bay ku dhigtaa ee aan daacadi ku jirin marka allaha laga cabsado waddani wuu guulaystay guul iyo gobonimo waxaan la hadlayaa wasiirka gaashaandhigga hadal badan haamama buuxshaan kulmiyow waa laydinka tashaday walaa mooshinaa soo wadaana soo dhardhaaraysaan walaa arrin kaloo meel kale ka soo wadaan wax loo joojinaya ma jirto xusbiganna wuxuu ku dhaqaaqay wuu ku sacsan yahay hadduu baarlamaankii ku guulaystay ama qoli wakiilada wuu ku sacsanyey hadduu rabo madaxtooyada inuu ku guulaystay wuu ku sacsanyey waa wuxuu u ordayay weligiiba waana u soconnaa laydigana yeeli maayo ama soo hadlo ama ha soo hadlina xusbiyadu way tashadeen ucud iyo waddani waa isbahaysi waddani baana hogaaminaya sidaas ku abshira alxamdulilah rabbilcaalamiin baa anagu leenay ilaahay hana guuleeyey annagu haddaanu nahay qurba joogta baaritaan badan baanu samaynay weliba maalmahan dambe waxaanu soo ogaanay in xusbigu uu u baahan yahay kala huf waana la kala hufaya kuwan iyo qaar kaloo badan waa loo soo socda kuwana waaba tan alla maanta uu inaga reebay qaar kaloo badanna waa loo soo socda marka waa iyagiyo kalaankood waxay ka helaan bay leeyihiin heestana kusoo dhawaada waddani baa guulaysanaya